munaasabada wacyigelin ah oo ay soo qaban qaabiyeen ururka dhalinyarada Isliiwood ee ka aasaasan magaalada Nairobi ayaa lagu qabtay xaafadda Islii ee magaalada Nairobi. Faafahinta qodobkaasina waxay noo haysaa wariyaheena Farduus Axmed Bedel. munaasabad wacyigelin ah ayaa lagu qabtay magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya. munaasabadan ayaa waxaa soo qaban qaabiyay ururka dhalinyarada ee Isliiwood. munaasabadan ayaa waxaa lagu wacyigelinayay dhalinyarada si aysan u galin xagjirnimada. gudoomiyaha ururka Isliiwood Burhaan Iimaan ayaa ugu baaqay dhalinyarada in ay ka feejignaadaan xagjirnimada. Farduus Axmed Bedel, Kalsan TV.